بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم annagoo ah dhalinyarada ku nool magaalada Munshin ahna dhalinyarada imka halkan isugu timid waxaan go'aansanay maanta oo ay tahay taariikhdu 19 bishii 2016 maanta ay sab tahay inaanu qabanqaabo u galno sidii aan wax ugu ururin lahayn dadka iyo dalka ay abaaro aad u naafeeyeen ee ay wadankii aanu ka nimi ayaanu aad ugu kacnay insha Allah dhalinyaradan oo ay ugu horeeyeen Cabdiraxmaan nin balaaran xaaji geelle anigoo ah Bashiir Mubaarak Caynaashe iyo Fahmi Salaad oo ku jiro Nuuruddin Xabashi oo ku jiro Jacfar Xaamud oo ku jiro Shaafici insha Allah waxaanu u kacnay oo xagga dumarkana ay aad iyo aad noogu qaabilsan tahay eedo Shams oo aan aad u ilaaweyn waxaan dhamaantii u kacnay inaanu insha Allah sidii aan wax ugu ururin lahayn dadka dhibaatooyinka iyo abaaro aad ugu naafeeyeen wadankii insha Allah waxaan jecelahay oo aan aad iyo aad u jecelahay intayada in ka badan iyo in ka sii badan bay nala gashaan oo aan nagala qayb qaadataan sidii aan hawsha ay u fuli lahayd insha Allah wax ururinta nagala qayb qaadataan fiidiyogan sida uu sii faafin lahaydeen dabcan arrinkaygu kuma koobno oo qura magaalada Munshin waxaa rag noo joogaan magaalooyinka Nuremberg, Augsburg iyo Regensburg laakiin waxaan dhammaan ka doonaynaa qof kasta oo dar Ilaahay wax ugu darsan kara dadka waa aad iyo aad baa uga dharagsantiin sida ay abaaro waddanka ugu naafeeyeen dadkii waa dhimanayaan $10 haddaad bixiso 10 euro haddaad bixiso waxaa laga yaabaa in Ilaahay 10 euro qof ku badbaadiyo marka hala baqaylna walaalayaal waxaan aad iyo aad u codsanaynaa in aad iyo aad nalooga qayb qaato ururinta lacagta iyo hawshaas oo dhan qof kasta oo fiidiyogaas soo gaara wuxuu ku yahay waxa qasab ku ah ama uu Ilaahay dar Ilaahay inuu qabto ay tahay inuu gaarsiiyo oo ka soo qaado qofkii uu awoodo si waa naga noo soo gaarsiiyo aad iyo aad baa u mahadsantihiin barakallahu fiikum muddadu dabcan waxay ku kooban tahay wiil gudihii insha Allah haddii Ilaahay ka dhigo oo dhammaan doona wiilka soo socda barakallahu fiikum salaamu calaykum